kooxda Manchester United ee ka dhisan cariga wadanka Ingiriiska ayaa sheegtay in isku dayayso inay mar labaad dib ugu soo celiso xidiga reer Portugal Cristiano Ronaldo ayaa hore ugu ciyaari jiray kooxda Manchester United sanadihii u dhaxeeyay 2003 ilaa 2009 lana qaaday 3 Premier League iyo sidoo kale horyaalka qaaradda Yurub ee loo yaqaano Champions iyo tartamada kale ee maxalliga ee laga ciyaaro wadanka Ingiriiska. Kooxda Red Devils ayaa doonaysa inay dib ugu soo celiso Old Trafford xidigan oo sanadkii 2009 Real Madrid ku iibsatay lacagtii ugu badnayd waqtigaas inuu ka biyadiiday macallinkii kooxda Leylinaya Sir Alex Ferguson inuu fasaxo isla markaana sanadkii ugu horeeyay 2008 oo Real Madrid u soo hanqal taagtay albaabada ka xidhay waxaana hadda ka tirsan yahay kooxda Juventus oo la sheegay inay diyaar u tahay inay iska iibiso Ronaldo oo mushaarkiisa xadaafka ah inuu helin dhaqaale ku filan kooxduna ka cabsanaysa inay soo wajahdo dhaqaale darro. Kooxda PSG ayaa shalay shaacisay in aanay meesha ka saari karin inay u dhaqdhaqaaqayaan Ronaldo oo ina awood u lahayn inay buuxiyaan shuruudihiisa iyo waxyaabaha uu baahan yahay balse kooxda Manchester United ayaa iyaduna xagga dambe ka keentay damaceeda sida uu xaqiijiyay wariyaha telefishinka Mareykanka ee Fox America ee Christian Martin ila xogaal ayaa xaqiijiyay in Manchester United dhamaadka xilli ciyaareedka isku day doonto inay la soo saxiixato wiilka reer Portugal. Wariyaha Christian Martin oo qoraal ku qoray bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku yiri daqiiqadii u dambeysay Manchester United iyo sidoo kale Porto ayaa xaqiijinaya inay Manchester United isku day doonto la soo wareegida Ronaldo. Xidiga reer Portugal ayaa u badan tahay inuu iskaga tago xagaaga soo socda kooxda Juventus. maxaa wadada ku dhajin noo bana tariiqade maxaa ku dhacay walaalid digsa bangiga Dar es Salaam lacag kala soo bixi lahaa oo kaalay maanad isticmaalin adeega kaafiya oo maxay adeega kaafi waa ku sahlaya adoo jooga goobtaada shaqo inaad lacag dhigan karto kana la bixi karto akoonkaaga Dar es Salaam haddaan isticmaalay adeega kaafi aad baad u maasantay